waxaan khadka teleefanka kula xiriiray Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan weydiiyay waxaan ka naqaan Maxamed Xuseen Roble. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسين روبلي أنا شخصيا حان سبرني 13 سنة كهر حلقي دولة عبد الله يوسف هو إنجنير نماك شقينية هيئة ILO إلا حلقي أنا هيئة سومش شقينية وانين سينيور مانجمنت ليفل كجاري UN كسيبة هيئة ILO أولا بدنا كسوق في صوماليا يا صومالي لامبا سيبة هيئة أردن كمشاريع بدنا ذلك يكفلسي وقيب كاها وانين أبي دجن من بشاشة ومدة نحكي كرا ملك استو جوجنا أد فريند اللي ولاها ومدة أن وجه فرنله ومدة سودوية أنت أنكار قانو من هذا معنى سياسة الصومالية مصلحة كل سبوية هؤلاء السياسات كلام سوقا لكن وانين مرول بنا هؤلاء وهيو خلق يبقى جري أما لاش قين جري الله ما هدول ما كان الدنيا هو برينتا يدي بوديسكا هؤلاء أنت بدن كلاش قين جري طبعا هاتن وطن لما قعابي wuxuu mari doonaa baarlamaanka hadii marka baarlamaanka ay meel mariyaan maxay tahay caqabadaha horyaal la horta mid ugu horeysa waxa laga rabaa inuu fuliyo hawlo asaga hadda gadaal uu ka gaaray ee ugu horeysa heshiiskii hadda ugu dambeeyay salka ku haya doorashooyinka soo socda hadii la haydo waxa kaloo xiga siyaasiyan dadka hadda kala irdoobay siyaasadda isaga soo horjeeda inuu soo dhaweeyo qaasatan mucaaradka iyo dawladda inuu soo dhaweeyo inuu gogol xaar u sameeyo mustaqbalka dhow arrimaha ku saabsan doorashooyinka soo socda kalsoonina geliyo dadka kale ee banaanka maslaxa ka taagan ee maanta daneynaya siyaasaddaas inay qayb ka noqdaan in uu magaranaysa hawlahaas dhan uu meel mariyo ayaa laga sugayaa on dareemeynaa sanadihii la soo dhaafay marxaladihii taagnaa iyo hawlihii ay ku kala tageen inta badan mucaaradka iyo dawladda maanta jirta fursadaha u furanna maxay yihiin fursadaha u furan marka la eego horta ninkan waa nin aad u degan oo dadka dhan magaranaysa qaabili kara la fadhiisan kara aad nin humble ah oo ummaddu u wada siman tahay taas inuu ka faa'iideysto oo hawlahaas horyaala uu uga faa'iideysto midda xigta waa nin ka soo shaqeeyay 15 sano ugu dambeeyay dalka ka shaqeynayay oo og waxyaalaha dadku ay ku kala aragti duwan yihiin iyo xaaladahooda aad u fahansan fahamkaasna uu uga faa'iideysto arrinta xigta tan saddexaad maadaama uu yahay nin cusub oo siyaasadda ku cusub oo dhaawac siyaasadeed horena aan lahayn taaqudeeda waa fursad kale oo asaga u muuqata maanta in uu uga faa'iideysan karo marka fursadooyin badan buu haystaa inkastoo waqtigu uu yahay mid aad gabaabsi u ah marka la eego heshiiskii hadda la gaaray oo la rabo doorashooyinkii waa 1 bisha November 6 isbuuc inuu hawlgala laga rabo waxa kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya oo khadka teleefanka ugu waramayay